ku adeegsaday oo ah saddex xabo laba uu dadka ku marin habaabinayay iyo xabadu isagu isku dhuftay iyo xabad uu marka hore ka saaray oo ka saaro nool waxa kale oo halkaasi marag muujin ka ah saddexdan qasharka ah ee aan soo helay xabada nool iyo dhaawac isaga waxaan cadeynaysaa taasi inay rasaastan tiisi tahay waayo rasaasta meesha ka dhacday waa Turki ee aan goobta ka soo helay baastoolada isagu sitaana waa Turki waa nooca yar yar ee Turkigu sameeyo waxaana noo soo baxday in rasaastii iyo baastooladan uu adeegsaday ay isleeyihiin taasaan ku cadeynaynaa in faldambigaasi isagu isku geystay meel kale looga yimid aanay jirin maadaama kiiska meelo badan laga riday wajiye fara badanna loo dhigay kiiska wixii ka soo baxay baanu halkan ugu yeedhay inuu ka bayaamiyo waxaan u akhriyay runtii kiiska baadhistii sidii ugu wacaneed ee ugu qotoda dheereed waan uga mahad celinaynaa waxaan halkan uga faa'iideysanayaa in gobolka awdal nabadgelyadiisu 100% tahay waxaan ummadda u sheegayaa meel kastay joogto ummadda reer Soomaaliland iyo inta danaynaysa nabadgelyadaba in gobolka awdal had iyo jeer hoyga nabadda iyo hoyga horumarka iyo hoyga qaranimada Soomaaliland ba ay awdal tahay ay isagu baastoolada afka galiyay ka ilaaliyay ciridkiisa kadibna sidaas oo kale ugu dhuftay markii aan helay dhiigga catabada ka bilaabmay ee tagay ilaa 22 mitir oo na tusay ama noo muujiyay in faldambiyeedku ka dhacay goobta 22 mitir markaa joogto in halka ka dhacay waxa kale oo weydiinay in bal dadkaasi uu garanayo waxa uu noo sheegay inaanu garanaynin wajiyadooda anigoo ah Dhamme Maxamed Cabdilaahi Muuse taliyaha laanta baarista dambiyada ee gobolka Awdal waxaan doonayaa inaan bulshada la wadaago dhacdadii iska soo daba dhacday ku saabsanay Safiir Cabdi Fataax Cilmi Maxamed waxaan ka bilaabayaa tii ugu dambeysay oo dhacday 17 bisha sagaalaad abaar 19 saac iyo barkii waxa la noo soo sheegay qiyaastii markii salaadii cishaha lagu jiray in guriga hooyadii oo ku yaala meel u dhow Sirooga Boorama lagu weeraray safiir xigeenka Cabdi Fataax lana dhaawacay goobta markii aan tagnay aan baarista bilownay waxa nagu dhacday in aan goobtii ka helay dhiiggaasi oo ka bilaabmayay catabadii guriga oo ahayd halkii uu fadhiyay safiirku waxaana uu safiirku fadhiyay guri waa guri bangala ah oo u jeeday dhinaca galbeed banaanka hore albaabka dibadda banaankiisa ayuu fadhiyay halka markii aan ka talaabsanay dhiigii waxaan u kacnay dhinaca banaanka ee dibadda dhinaca koonfur galbeed dhinaca koonfureed markii aan u talaabsanay waxaan aragnay dhibic dhiiga 5 mitir halkii kursiga ku fadhiyay markaan ka socday waxaan helay hal xabo oo nool iyo xabad qashara talaabadaydi iyo dhiigii aan arkayay markaan sii raacay 5 mitir oo kale markaan socday hal qashara ayaan helay waan sii socday ilaa geedo sogsogoo dhinaca ka xigay reer guriga 12 mitir markaan socday na waxaan la kulmay dhiig yaala iyo hal qashira intii markii aan soo qaaday ee aan soo noqday waxaan dib ugu wareegay dadka jaarasha ee nawaaxiga kaaga dhawaa waxaan helay 4 marag oo maqlaaya xabada 3 kamidii waxay noo sheegeen in meesha goobta ay ka dhaceen 3 xabo rasaasa hal qofna waxa uu noo sheegay in 4 xabo rasaasi ay ka dhacday intaas markaan helay waxaan soo kaxeynay isbitaalka guud si aan safiir xigeenka wax ugu weydiino dhacdada ku dhacday markii saalootada laga soo saaray qolkii la soo dhigay yaan la kulanay
waxbaan ka weydiinay waxa uu noo sheegay in isagoo guriga hooyadii albaabka dibadda hortiisa fadhiya kursina ku fadhiya uu maqlay shanqadh ka soo wareegaysa dhinaca koonfureed ee guriga markii uu daymoodayna uu arkay 3 nin oo laba ay xidhan dirays toota ah midna dirays kaaka ah kadibna hal nin oo kamid ah 3 nin markuu hal mitir u soo jiray qiyaastii uu xabad afka uga dhuftay dhaawacuna sidaa ku soo gaadhay isagu markii xabaddu ay ku dhacday uu kacay 2 mitir oo hore u dhaqaaqay hase yeeshee qoyskii oo albaabka ka soo baxay hooyadii iyo gabadhu waabtii u yahay uu dib u celiyay sidiina dhakhtarka guud loogu keenay waxa kale oo weydiinay in bal dadkaasi uu garanayo waxa uu noo sheegay inaanu garanaynin wajiyadooda qof ahaantooda mid iyo qof ahaantooda midnaba inta markii aan helay waxaanu la kulnay isbitaalka guud oo aan weydiinay dhaawaca gaadhi safiir xigeenka nooca uu yahay iyo sida wax ugu dhaceen waxa uu noo soo cadeeyay isbitaalka guud in dhaawaca gaadhi safiirka uu yahay dhaawac gudaha daanka bidix kaga dhacay gudaha 2 qodob la tolay dibaddana 9 qodob la tolay waxa kale oo noo cadeeyay in safiirka xabaddu uga dhacday afka oo ah daanka bidix oo aan meel kale waxba gaarsiinin gudahana 2 qodob la tolay dibaddana 9 qodob meel kalena aanay wax dhaawac gaarsiinin sidoo kale waxaan baaris ku soo sameynay guriga hooyadii si aanu u weydiino macnaheedu baastooladi wax uga soo baadhno baastooladi markaan ka soo baadhnay boorsadii yareed baan soo helay boorsadeed waxa ku jiray 2 kiniini labadaa kiniini oo ah lorabam 10 mg iyo ambarelin 5 mg markii aan isbitaalka guud weydiinay dawadaasi waxa loo adeegsado waxa ay noo sheegeen in loo adeegsado walwalka niyad jabka walaaca maskaxda iyo wixii la xiriira ka baaris ahaan nuxurka baarista nooga soo baxday ee dacwadan waxa weeyaan markii aan helay 3 qashir iyo xabad nool markii uu safiiru qirtay inuu 2 xabo oo kamid ah uu goobta ka riday oo uu iskaga difaacay nimanka markii aan helay dhiigga catabada ka bilaabmay ee tagay ilaa 22 mitir oo na tusay ama noo muujiyay in fildambiyeedku ka dhacay goobta 22 mitir markaa joogto inuu halkaa ka dhacay waxaa noo caddaatay sidani in dhaawaca safiirka gaadhay ahayn mid dibadda uga yimiday ee uu yahay mid isagu adeegsaday oo xabadda daankiisa isku dhuftay oo dhaawacu sidaa ku gaadhay waayo haddii xabadda dibadda lagaaga soo rido dibnahana googo'aya ilkaha jajabaya carabka wax noqonaya meel direction kale ka baxasa oo dhaawac culus baa halkaa ka imanaya hase tani waxay ahayd sida nooga muuqatay baarista inuu isagu baastoolada afka geliyey ka ilaaliyay ciridkiisa kadibna sidaasoo kale ugu dhuftay xooladuna gudaha kaga dhacday dibadda nooga baxday waxa kale oo baarista nooga soo baxday markii maragyadaas ay noo tilmaameen rasaasta goobta ka dhacday in aanay ahayn rasaas kaloo meesha ka dhacday inaanay jirin ee ay tahay kaliya oo ama ay ku kooban tahay rasaasta safiirku adeegsaday oo ah 3 xabo 2 uu dadka ku marin habaabinayay iyo xabad isagu isku dhuftay iyo xabad uu marka hore ka saaray oo ka saaro nool waxa kale oo halkaasi marag muujin ka ah 3 qasharka ah ee aan soo helay xabada nool iyo dhaawac isaga waxaan cadeynaysaa taasi in rasaastan tiisi tahay waayo rasaasta meesha ka dhacday waa turki ee aan goobta ka soo helay baastoolada isagu sitaana waa turki waa nooca yar yar ee turkigu sameeyo waxaana noo soo baxday in rasaastii iyo baastooladan u adeegsaday ay isleeyihiin taasaan ku cadaynaynay faldambiyeedkaasi isagu isku geystay meel kale looga yimid aanay jirin horena waan ugu soo sheegay dhakhaatiirtu waxay noo cadeeyeen oo dee in xabadi gudaha kaga dhacday oo aanay dibadda uga dhicin gudaha uga dhacday haddii ay dibadda uga dhici lahayd dhibaato ka weyn bay geysan lahayd gabagabadii baarista aan helay ama noo soo baxday waxay ahayd in aanay jirin cid
raasaas ku riday goobta falku ka dhacay uu ku dhaawacmay safiirku isla markaasina uu riday safiirku 3 xabadood oo ta ugu horeysay uu iskaga dhuftay canka bidix gudihiisa meel kale oo wax dhibaato ka gaadheena afkiisa aanay jirin xabada oo iyo hal xabo oo nool qasharka goobta laga helana yahay kiisii bulshada markaas Soomaaliland waxa la wadaagayaa in faldambiyaadkaasi ku kooban yahay shakhsigaasi aanay jirin cid kale oo la wadaagtay ama cid kale wax xiriir la leeyahay intaasan kusoo koobay warbixintayda saxaafaddu way maasan tahay gudoomiyaha gobolku mahadsan yahay iyo saraakiisha kale fadhida goobta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh maanta ay tahay bisha 20 bishii sagaalaad 2025 waxa halkan fadhiya goobtan ah xaruntii gobolka Awdal gudidii nabadgelyada ee gobolka iyo gudidii baadhista laanta baadhista dambiyada qaranka oo heer gobol iyo heer qaranba isugu jirta waxaanu isugu nimid halkan inaan bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan inaan uga cadeyno falkii ka dhacay 17 bisha sagaalaad ee 2025 falkaas oo ku dhacay safiir ku-xigeenkii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Djibouti falkaas markuu dhacay gudidii baadhista ayaa hawsha shaqadeedu ahayd iyada ilaa maalintii iyo maanta kiiska ku jirtay waan uga mahad celinaynaa inay maanta soo gabagabeeyeen waxa halkan fadhiya taliyihii dambiyada baadhista ee gobolka oo aan doonayno inuu warbixintii iyo kiiskii baadhista wixii ka soo baxay ummadda uu bayaamiyo maadaama kiiska meelo badan laga riday wajiyo fara badanna loo dhigay kiiska wixii ka soo baxay baanu halkan ugu yeedhay inuu ka bayaamiyo waxaan u akhriyay runtii kiiska baadhistii sidii ugu wacaneyd ee ugu qotoda dheereed waan uga mahad celinaynaa waxaan halkan uga faa'iideysanayaa in gobolka Awdal nabadgelyadiisu 100% tahay waxaan ummadda u sheegayaa meel kasta joogto ummadda reer Soomaaliland iyo inta danaynaysa nabadgelyadaba in gobolka Awdal had iyo jeer hoyga nabadda iyo hoyga horumarka iyo hoyga qarannimada Soomaaliland ba ay Awdal tahay inaan ahayn gobol si hawl yar nabadgelyadiisa iyo wada noolaashihiisa iyo midnimadiisa toona lagu burburin karo adduunyada wax walba way ka dhacayaan wax waliba way saameyn bay yeelanayaan Mareykanka ogtiin iyo Ingiriiska ogtiin bay maalin walba wax ka dhacayaan ilaahay baa qadarka hayo cidna baajin kari mayso laakiin falka halka ka dhacay sida ay sheegeen gudida baadhista ee dambiyadu iyadoo kaleero cadaan waa kuwa halka soo bandhigay ka qodobkan anagu ku leenay guddi nabadgelyo ahaan iyo maamul ahaan waxa weeye in loo baahan yahay marka bulshada wax dhacaan inaan laga hor dhicin falka ilaa iyo inta baadhisteeda iyo gabagabadeedu ay runtii soo baxayso ee la sugo dawladda gacanta markay ku qabato ilaa iyo inta go'aanka ugu dambeeya uu soo baxayo waayo haddii arrinta laga hor dhaco oo ujeedooyin kale oo la leeyahay la dhex gashado marka waxa meesha ka baxaysa in xaqiiqdii iyo guntii la gaadho marka waxaan uga digaynaa war wax weyn ugu imanayaan way dhacayaane
in dowladda looga dambeeyo falka si ay xogteeda iyo gunteeda u gaadho taasaa bulshada dani ugu jirtaa saasaa wada noolaashiyaha dani ugu jirtaa taasaa maxay ahayday inaynu gunta gaadhno oo xaqiiqda soo taabanno oo dembigaa guntiisa gaadhno waxay ugu jirtaa inaynu si wada jiraa aynu u wajahno kolba wixii yimaada qodobkaan halkaasaan uga faa'iidaysanayaa gobolka iyagu waa nabadgelyo waa gobolkii runtii nabadgelyada maanta Somaliland ay ku fadhido soo unkay meel alaala meel maanta looga baqa mari maayo awdal